kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda sharafta iyo qiimaha naga mudan oo ku soo dhawaada barnaamij aanu kaga hadlayno hannaanka doorasho ee la filayo in ay ka qabsoonto gudaha Jubbaland. Barnaamijka ayaanu kaga hadlaynaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin hannaanka doorasho ee la filayo in ay qabsoonto dhowaan, sida loo maareynayo xiriirka dowladda iyo maamulka waa sidee, axsaabta mucaaradka iyo doorka ay ku wajihi karaan dhinacyada isdiidan ee habmaamulka doorasho ee socda sidee ayuu noqon karaa. waa tahay aynu ku horeyno daawadayaal. ugu horeyntii doorashadii koobaad ee 2013 ka qabsoontay gudaha Jubbaland iyo sidii ay waxaayeen. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markii uu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland kadib markii uu ka guuleystay musharaxiintii kale ee ka qayb galay doorashada, Axmed Madoobe waxaa la doortay in uu noqdo madaxweynaha Jubbaland 2015. muddo xileedkiisii ugu horeeyay ayaa la dhameeyay, waxaana uu ku guuleystay doorasho kale oo la xiriirta madaxweynenimada Jubbaland kadib markii uu ka mid noqday musharaxiintii taageero ka helay gudaha iyo dibaddaba. 2020 andhehe Axmed Madoobe ayaa mar kale dib ugu soo laabtay kursiga madaxweynaha Jubbaland, inkasta oo doorashadii xilligan ay ahayd mid muran iyo khilaaf siyaasadeed uu ka dhex jiray, iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan aqoonsanayn doorashada waqtigaasi dhacday. Si kastaba ahaatee, sidaasi darteed Axmed Madoobe wuxuu ka talinayaa Jubbaland muddo ku dhow 11 sano laga bilaabo 2013 hadda oo aynu joogno 2024. marka la eego guud ahaan waqtiga uu xilka hayo, muddadaas waxa uu ku jiray doorashooyin iyo khilaafyo siyaasadeed oo ka dhex dhacaya gudaha maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka doorashada iyo isdiidooyinka aynu u weecanno, doorashadani hadda marka loo eego doorashooyinkii hore waxa ay noqonaysaa sida muuqata boob doorasho oo ka dhacda Jubbaland. waa mid ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee ugu saameynta badan xilligani la taagan yahay. doorasho ka qabsoonta gudaha Jubbaland marka isbarbardhig lagu sameeyo maamulka Jubbaland iyo dhammaan maamulada kale ee ka jira dalka, iyadoo si joogto ah looga hadlo khilaafaadka iyo falalka sharci darro ee lagu eedeeyo qaar ka mid ah madaxda siyaasiyiinta iyo kooxaha xooggan ee ku lug leh doorashooyinka maamulka Jubbaland. boobka doorasho wuxuu ka dhigan yahay musuqmaasuq ama faragelin aan sharciyada waafaqsanayn oo lagu sameeyo habka doorashada, taas oo ujeedadeedu tahay in si xoog ah loo xakameeyo natiijada doorashada iyadoo la adeegsanayo fursadaha iyo kheyraadka laga helo awoodda siyaasadeed. doorashada Jubbaland waxaa si weyn uga qayb qaata beelaha kala duwan ee ku nool maamulkaasi, waxaana doorashadu muhiim u tahay in lagu dhiso dowladnimada iyo xasiloonida gobolka. xubnaha baarlamaanka Jubbaland oo inta badan ka soo jeeda beelaha kala duwan ee gobolka ayaa doorashada madaxweynaha qabanqaabiya, waxaana mararka qaar khilaafyo siyaasadeed iyo qabiil soo food saari karaa habka doorashada sida haddaba taagan. intaasina waxaa dheer in Axmed Madoobe tan iyo waqtigaasi uu soo xulanayo odayaasha dhaqanka beelaha, xildhibaanada iyo wixii kale ee la halmaalaa doorashooyinka Jubbaland tan iyo intii uu haystay xukunka Jubbaland. marka laga hadlayo xaaladda doorasho ee Jubbaland, waxaa muhiim ah in la xuso doorka ay dowlad goboleedkaasi ka ciyaaraan siyaasadda guud ee Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha federaalka, amniga iyo dib u heshiisiinta iyo tan gobolkaba. bal haddaba aynu eegno saameynta mucaaradka Jubbaland ee uu hanqaltaagaya qabashada kursiga laga hago Jubbaland. mucaaradka Jubbaland waxay inta badan door muhiim ah ka ciyaaraan siyaasadda gobolka, iyagoo soo bandhigaya aragtiyo iyo qorshayaal ku saabsan sidii loo horumarin lahaa maamulka iyo bulshada Jubbaland.
balse fursadaasi lama siinin oo maamulka muddadaasi ka talinayay ayaa bannaanjoog ka dhigay. xisbiyada mucaaradka ee ka jira Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ah kooxo ka soo horjeeda maamulka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, kuwaas oo sidoo kale ugu dhiiran in ay ku eedeeyaan mucaaradka. waxaa sidoo kale ka mid ah kooxo ka soo horjeeda maamulka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, kuwaas oo si gaar ah ugu dhiiran in ay ku eedeeyaan in uu awoodda ku xadgudbay, si gaar ah isticmaalka awoodda baarlamaanka iyo fursadaha doorashada si uu u sii hayo talada. kooxahan mucaaradka ah waxay sidoo kale ku tilmaamaan maamulka Axmed Madoobe mid aanan metelin dhammaan qaybaha bulshada Jubbaland, halka gobollo iyo deegaano muhiim ah gacanta cadowga ku jiraan. si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale la kulmaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin awoodda siyaasadeed ee kooxda maamulka ah uga timaada faragelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale iyo mid amniba. waxaa muhiim ah in doorashada iyo siyaasadda Jubbaland ay noqdaan kuwo aanan loo dhammayn oo aanan u qabsoomin xalaal sidii ay horeyba u tirsanayeen xubnaha mucaaradka. haddaba si loo xaqiijiyo in dhammaan bulshada gobolka ay ka faa'iidaystaan isla markaasna laga hortago xasaradaha iyo khilaafka sii kordhaya, waa in maamulka Axmed siiyaa fursad axsaabta qudaraynaysa siyaasadda Jubbaland una wareejiyaa sidii loogu idmaday, doorashana qabtaa, maadaama aysan sharciyad ahayn in uu maamulo muddo 11 sano ah. waa sidee xiriirka maamulka Jubbaland iyo kan dowladda dhexe ee Soomaaliya? khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waa mid ka mid ah arrimaha siyaasadeed ee ugu saameynta badan ee ka jira Soomaaliya. khilaafkan ayaa sababay in xiriirka labada dhinac uu noqdo mid murugsan, iyada oo isfaham la'aani iyo faragelin dhinac kasta ah ay keentay dhibaatooyin siyaasadeed, amni iyo mid bulsho. khilaafkaasi waxa uu si weyn u saameeyay siyaasadda gudaha Soomaaliya iyo xasilooni darrada gobolka Jubbaland. Jubbaland wuxuu ka mid yahay maamul goboleedyada ku jira nidaamka federaalismka ah ee Soomaaliya. doorashooyinka iyo madaxbannaanida doorashada madaxweynaha Jubbaland, xukuumadda federaalka waxay marar badan ku eedeysay maamulka Jubbaland in uu ku xadgudbayo hannaanka doorashooyinka iyo in aan la helin habdhaqan dimuqraadiyadeed oo cadaalad ah. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ku eedeysa in Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland uu soo xushay baarlamaanka iyo go'aanada doorashada si loo xakameeyo awoodda siyaasadeed ee gobolka.